libaaxyo wada socda siyaasiyiin isfahmay iyo hoggaanka ugu wanaagsan dalka ayaa loogu yeeri jiray marka ay wada jir yihiin balse haatan xaalka waa sidee 3 sano kadib aan dib u milicsano shirkii magaalada Dhuusamareeb waxa uu ahaa mid dhinacyada kala duwan ee ku shirsanaa magaaladaasi ay wateen kala aragtiyo duwanaansho isdiidaya waana tan sababtay in muddo maalmo oo hore aan loo sii qorsheyn shirkaasi oo ka socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug madaxweyne Farmaajo ayaa keligii waxa uu qabay in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo dalka waxaana madaxda Jubbaland, Puntland, Hirshabelle iyo ra'iisul wasaaraha ay qabeen doorasho dadban inay ka dhacdo gudaha dalka Soomaaliya halka Galmudug oo marti loo ahaa iyo Koonfur Galbeed mowqifkooda uu ahaa mid aanan cadeyn ra'iisul wasaare Khayre oo madaxweynaha kaga hormaray magaalada Dhuusamareeb ayaa abuuray jawi uusan ku qanacsaneyn madaxweyne Farmaajo waxaana 3 sano kadib banaanka soo baxay khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Khayre isku dhaca Khayre iyo Farmaajo ayaa sii xoogaystay tan iyo markii ra'iisul wasaaraha safar uu ku tagay magaalada Dooxa iyo dalka Qatar iyo markii madaxda maamul goboleedyada Dhuusamareeb uu siyaabo gooni ah uga hadlay inay isku duubnaadaan madaxweyne Farmaajo markii uu tagay magaalada Dhuusamareeb waxa uu la kulmay hirarka xoog badan wuxuu door biday in uu sameeyo qorshe kasta uu kaga badbaadi karayo culeysyada ka saarnaa shirkii Dhuusamareeb habeenkii marka madaxda ay kulmaan waxa lagu kala tagay isfaham balse wax walba waa isbedelayeen aroortii marka la gaaro ugu dambeyntii madaxweyne Farmaajo ayaa helay kaartidiisii ugu horeysay waxaana isla garteen isaga iyo saaxiibadiisa bahwadaagta ay yihiin in Jubbaland iyo Puntland tabashadooda si shakhsiyadeed loo xalliyo sidoo kalena waxaa la isla gartay in kulan dambe la isugu yimaado kaasi oo ahaa mid ka mid ah qorshayaasha madaxweyne Farmaajo waxaana shirkaasi loo dhigay bisha Agoosto iyada oo kadibna laga fakiray qorshaha labaad ee shirkaasi lagu carqaladeyn karo waxaa isdiiday Khayre oo doonaya in doorasho dadban dalka ay ka dhacdo maadaama isagaba hunguri uu ka galay xilka madaxweynenimada iyo Farmaajo oo muddo kororsi doonaya waxaana xafiis kasta uu ku mashquulay fulinta qorshihiisa gaar ahaaneed gudoomiye Mursal oo saaxiib dawla ah madaxweyne Farmaajo ayaa ciyaarta goolka ugu muhiimsan ka dhaliyay waxaana kulankii baarlamaanka soo xaadiray xildhibaanadii ugu badnaa abid oo gaarayay in ka badan 170 mudane taasina shaki badan ayay ku dhalisay xubnaha golaha wasiirada ka tirsan ee baarlamaanka kamid ah baarlamaanka kulanka markay isugu imaanayeen laba arrin midood ayaa qorshaha u ahaa gudoomiye Mursal iyo xubnaha ku xeeran waa tan koowaade in si dadban waqti kororsi u sameeyaan iyaga oo tixraacaya soo jeedintii Xaliime Yari gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ahayd in la siiyo fursad 13 bilood oo doorasho qof iyo cod ay kaga sameyn karto dalka iyo qorshaha labaad oo ahaa in cod gacantaaga xilka looga rido ra'iisul wasaare Khayre qorshihii labaad ama balaan biigi ayaa guuleystay oo ahaa in iyada oo mooshinka ra'iisul wasaare Khayre la qaban lana shaacin in gudoomiye Mursal si hoose ciyaarta uu kala rogo waxaana halkaas daaqada looga tuuray xukuumadii ra'iisul wasaare Khayre oo lagu eedeeyay inay ku fashilantay 4 arrimood waxa ugu muhiimsan ee lagu fashilmayna waxay tahay ammaanka dalka maamulka dawliga ama nidaamka federaalka oo hoos loo daadajiyo dastuurka oo la dhameystiro iyo in al-shabaab laga saaro guud ahaan dalka intaba wax laga ma qaban waana 4 qodob ee lagu eedeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa Khayre oo saaxiib dawla ahaa madaxweyne Farmaajo hadda wuxuu u muuqdaa inuu ku baxayo mooshinka gacantaaga loogu codeeyay ama waxay xiisada noqon kartaa mid xal laga gaaro marka si hoose gacmaha loo dhaqo haddii ra'iisul wasaare Khayre sidaasi uu ka baxo waxa meesha ka baxaya ballanqaadkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in ra'iisul wasaaraha uu keeno 4 sano ay dhameysan doonaan waxa hadda la isweydiinayaa xaalka siyaasadeed iyo dalka halka uu u jiheysnaan doono warbixino kaleento ayaan kula wadaagi doonaa oo macluumaadka siyaasadeed ee soo kordhay kamid ah adigu maxay tahay aragtidaada qaybta hoose noogu reeb mahadsanid